kulanti wacan daawade waa boggeena Facebook ee tixraaca wararka iyo warbixin degdeg ah. Geerida Cali Dheere, afhayeenka Al-Shabaab oo shir jaraa'id qabtay, muxuu ka yiri dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan? Waxaa soo hadlay markan afhayeenkii Al-Shabaab oo ay maalmo ka hor idaacadda ciidamada qalabka sida ee dawladdu ay sheegtay inuu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal ka dhacay deegaanka Ceel Qooxle ee gobolka Hiiraan. Shir jaraa'id ayuu qabtay Cali Dheere. haddaba muxuu kaga hadlay 10 daqiiqo oo codka Cali Dheere ah ayay baahisay warbaahinta kooxda Al-Shabaab. muxuu diiradda ku saaray hadalkiisa, warka geeridiisa muxuu ka yiri? Warbixintan gaarka ah ayaan ku eegaynaa haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir adigoo muuqaalka like saaraya lana wadaagaya oo u share gareynaya saaxiibada mahadsanid. ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno afhayeenka kooxda Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere oo dhawaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay sheegeen in lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan ayaa soo hadlay taasi oo meesha ka saartay sheegashadii dawladda. Cali Dheere ayaa cod lagu baahiyay warbaahinta Al-Shabaab waxa uu kaga hadlay dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada Sooman iyo Beerayabaal oo dhaca duleedka degmada Buulaburd ee gobolka Hiiraan. codkan oo ay xalay baahisay warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayuu Cali Dheere ku sheegay in taariikhdu ay tahay 12 Oktoobar 2022 taasi oo u muuqata mid looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo in aanu ahayn cod horey loo duubay oo taariikhda maanta ah ayuu kaga hadlayay. afhayeenka Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegtay in dagaalkii shalay ay ku dileen 117 askari oo kamid ah ciidamada dawladda inkasta oo sheegashadaas aan si madax banaan loo xaqiijin karin iyadoo dawladda ay horey u sheegtay in khasaare xoogan dagaalkaas lagu gaarsiiyay dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo xogtooda la sii hayay. warbaahinta codka ciidamada dawladda ee SNA Radio ayaa 6 bishan Oktoobar waxa ay sheegtay in uu afhayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Dheere u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal ka dhacay deegaanka Ceel Qooxle ee gobolka Hiiraan. qoraal la soo dhigay bogga Facebook ee raadiyaha dawladda ee idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa lagu yiri xog muhiim ah oo warbaahinta codka ciidamada SNA Radio ee heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in afhayeenka argagixisada Al-Shabaab Cali Dheere axadii la soo dhaafay 4 barkii galabnimo uu ku geeriyooday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa sidaas u dhignaa qoraalka ka soo baxay warbaahinta ciidamada dawladda ee SNA Radio. qoraalka warbaahinta ciidamada qalabka sida lagu daabacay ayaa waxa uu intaas ku dareeyay in Cali Dheere uu isbitaal la jiifay dhaawac culus oo ka soo gaaray dagaal ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka isku dhinac ah ay Al-Shabaab kula galeen deegaanka Ceel Qooxle ee gobolka Hiiraan Khamiistii 29 bishii Sebtembar ee dhaaftay ee sanadkan 2022. codkan ay baahisay warbaahinta kooxda Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhigan yahay in mar kale uu beenoobay war la xiriira geerida afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere kaasi oo dhowr jeer hore warar soo baxay ay sheegayeen inuu geeriyooday balse goor dambe ayuu warbaahinta la hadlay. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo boggeena Facebook ee tixraaca wararka like saaraya muuqaalkana la wadaagaya saaxiibada mahadsanid.